السلام عليكم داودة كسو دغو قيبتي u horeysay muuqaal xiisa badan oo ku saabsan xasuustii nabad sugidii Soomaaliya ee NSS intii u dhaxaysay sanadihii 1976 ilaa 1991 maqaalkan waxa qoray Mr. Xiirane oo kamid ahaa saraakiishii nabad sugidii Soomaaliya bishii January 1976 wuxuu madaxweyne Siyaad shiriyay xubnihii golaha sare waxa laga xaajoonayay xaashi ama warqad sir culus ahayd oo laga dusiyay xafiiska laanta beeraha adduunka VAW ee fadhigeedu yahay magaalada Roma ee Cariga Talyaaniga warqadda waxay sheegtay in dawladda Mareykanka doonayso inay biyaha ka jarto beeralayda Soomaaliyeed ee ka caba webiga Shabeelle iyadoo la adeegsanayo mashruuc waraabineed oo loo sameeyo Itoobiya hay'adda USAID ayaa ku yaboohday 29 milyan oo dollar oo Washington ugu talagashay in lagu oomiyo Soomaalida beeralayda ah waxa mashruuca fulin lahaa shirkad Israa'iil laga leeyahay muddo 9 bilood ah ayaa la karkarinayay qorshaha laga yeelanayo mashruucaas ay doonayso Washington inay ku go'doomiso wax soo saarka Soomaaliya iyadoo adeegsanaysa xeel dheerayaal Yuhuuda dhamaadkii bishii 9aad ee 1976 ayaa waxa la iga yeeray xafiiska madaxweyne Siyaad waxay ahayd shaqo dibadeed tii ugu adkayd ee la ii diro anigoo sanadkii ugu horeeyay moogan dugsigii Moscow ee barashada xeeladaha ilaalinta qaranka waana sanadkii koobaad ee aan si rasmi ah uga hawlgalo NSS-ta qorshe dhameystiran ayaa gacanta la iiga galiyay waxaan u dhoofay Lagos Nigeria oo kamid ahayd marinadii ee shaar bedelashada NSS-t Soomaaliya kadibna Hungary halkaas ayaan ka aadi doonaa Tel Aviv markii iigu horeysay fiidkii ayay diyaaradii naga dhigtay dhabaha diyaaradaha ee Ben Gurion waxaan habeenkii u hoyday hotel aanan haatan xasuusan magaciisa aroortii ayaan doontay guri aan ka shaqo tago dhismaha 37 jidka Yuushac bin Nuun Tel Aviv ayaan kiristay jiif jiko iyo fadhi isku qoofalan 3 casho ayaan intaan fiidkii baxo soo iibsadaa dhowr dhalo oo khamri ah kadibna intaan suuliga ku qobo ayaan dabadeed miiska saartaa wax ka bashadan oo haraa ah si aan la iiga shakin hadiiba ay dhacdo inay soo galaan nabad sugidu waxaan maareeyay inaan la xiriiro shirkadii qaadatay qandaraaska oo la yiraahdo Nativim anigoo matalaya muwaadin u dhashay Argentina waxaanan ula tagay tusmada dhul beereed baaxad leh oo ku yaala gobolka La Pampa oo 790 kiiloomitir u jira xarunta Argentina Buenos Aires dhulkaas oo aan sheegay inaan leeyahay ahayna taajir doonaya in loo sameeyo waraab casri ah iyagoo isdhaweynaya ayaa la iskay baray injineerka biyagelinta ku sameyn doona Itoobiya oo madow aan isla nahay waxaana maalin walba dhowr jeer telefoon u diraa sarkaal ka tirsan NSS-ta oo talisku fariisiyay magaalada San Luis oo aan ka fogeyn beertayda gobolka ay ku taalo markaan 12 maalmood wada hadal ku jiray shirkadda waxaan dhaliyay 3 gool anigoo maagan inaan 2 kale ku daro ayuu ii sheegay sarkaalkii San Luis joogay in beertii uu cayayaan galay ayna halis ku jirto hadii aan si dhaqso ah loo daweyn inaan la iga maarmeyn uu ii sheegay dabcan hadalkaas wuxuu ahaa inay dhici karto in la iga shakiyay markaa inay tahay inaan durba dhoofo sidii ayaana yeelay jidkii dheeraa ee hooyashada ayaan u biyo dhaansaday anigoon ka xumayn inay 2 gool ii hartay safarkii iigu adkaa shaqada iigu halista badnayd iyo waxay ahayd socdaalkii iigu horeeyay ee aan ku tago Israa'iil wuxuu ahaa markii 9aad socdaal aan ku tagay gadaashi wuxuu ahaa bilowgii socdaal dheer oo naafa badan waa xasuustii Xiirane waxaanad kala socon doontaan Xuseen Guri cashirada kale ee aan ku xasuusan doono nabad sugidii NSS ku mahadsanidina socodka subscribe like saar gambaleelka furo si aysan cidi kaaga hormarin